halkan waa xafiiskaygii degmada Burco waa mahadnaqaynaa Samsat iyo Bulsha TV rag maanta halkan nagu soo booqday wariyaashan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa TV xaqiiqatan labada TV si dhow noola shaqeeya inta kadib magaalada Burco si guud ahaan hadaan uga warano xaaladda maanta dhaqaale ama xaaladda maanta bulsho waxaan oran karnaa maalin walba ama maalinta ka dambaysa way ka soo way saraw kacay sameynaysaa ama heerkeeda dhaqaaluhu iyo arrimaha bulshadu kor bay u sii kacay inkastoo waxoogaa xagga lafdhabarta dhaqaalaha gobolkan Togdheer uu ku xidhan yahay 90% xoolaha nool xoolin noolaana in dhaweyd maalmahan bay waxoogaa iibkoodu bilaabmay ay in dhaweyd waxoogaa yar qabash ku jiray haddana dhaqaalaha gobolku wuu soo taray waxaan mahad kale u celinaynaa qurbo joogta gobolkan oo wax weyn ka qabanaysa gobolka waxaad arkaysaa iminka waxyaabaha ay ka caban jireen qurbo joogta markay caruurtooda keenaan meel lagu ciyaaro ama caruurtii ay ku madadaashaan magaaladu ma laha ilaahay subxaanahu wa tacaala waan ugu mahadnaqaynaa in reer Burco maanta ay meelo aad iyo aad u waaweyn ay ka sameynayaan oo caruurta ay ku ciyaarto balaasa ayaa ka sameeyay meel caruurta ku ciyaarto oo hadda 24 saacadood baad arkaysaa inay maartay jam tahay ismaanka ahayn oo isna Hargeysa mid weyn uga furan yahay ka hotel ayaa halkan isagoo imka wuxuu ka dhisay mid aad u weyn oo marka sida awgeed waxaad arkaysaa in dhaqaalihii gobolku sare u soo kacay hudheelada waaweyn Hargeysa ka dhisan mid kasta branch halkan laga sameeyay engineer Cabdiqaadir baa isaguna wuxuu ka sameeyaa Mansour Hotel branch Burco ka sameeyay dhalinyarada gobolka wax ka sameynaysa faradoonta Nayub Ibrahim kala iyaduna furan oo aad hudheel casri ah waxay nasteex ayaduna iminka maaragtay hadda la furaya guud ahaan waxaad arkaysaa degmada Burco ama gobolkan Togdheer dhaqaalahoodu inuu soo kabanayo oo graafkoodu kor u sii socdo waxa iyaguna taa raacaysa ganacsatada yar yar oo ama kuwa kaaryoona wax ku iibiyaha noqoto ama kuwa maaragtay dabakaayooyinka iyo meelaha yar wax ku iibiyaha noqoto iyaguna iminka aad iyo aad u soo badanaya oo waliba ganacsigooduna meeshan waa iska barakaysan tahay oo inta badan aanu hoos u dhicin dawladda hoose degmada Burco dhowr jeer bay waxay samaysay suuqyo ay ugu tala gashay in ay ganacsatada yar ay ku ceeshaan waxa kamid ah suuqii onadka oo intaas oo 100 guri laga sameeyay waxa kamid ah Kiinsi oo iyadana intaas oo 100 guri laga sameeyay waxa iyaduna imika aad ogtiin halkan suuqan yar iga horeeyay imika sariibadan imika iga horeysay wadacad guriga ciida ka badan baa laga sameeyay dawladda hoose ka sameysay laba hangar oo weyn oo leey cilad baa iska jirta hadii jeer oo dowladkii dawladda hoose ugu tala gashay ama dawladdu ugu tala gashay in lagu baax mushtareeyo waxa laga yaabaa dadku inaanay kalsooni badan ka qabin guriga dhexdiisii laga yaabaa in dibadda iyo maaragtay meelaha wadooyinka lagu ganacsanayo taana aad iyo aad baan uga xunahay dadka dadweynaha reer Burco waxaan ka codsanaynaa in ay dhulalka loogu talagalay ganacsiga ay ku ganacsadaan hadii guryahooda marka ay doonayaan inay ku ganacsadaan laakiin inta badan waa dib wadooyinkan waad arkaysaa kaaryoon alaab lagu wado oo la safay imika halka baarsiga oo kale halkan berbera oo kale Deero Hotel oo kale kaaryoonyaal baad arkaysaa inta badan lagu iibinaya oo bacadla way fiican tahay laakiin jam xaqii wadadana waa keensanaya dadweynaha reer Burco waxaan soo jeedinaa meelihii loogu talagalay baax mushtarka ama guryaheena in marka dadku ay ku shaqeystaan oo ku baax mushtareeyaan waxaanu kale reer Burco u sheegaynaa dawladda hoose degmada Burco waxay sameynaysaa laba suuq waa guryihii ex place ee Burco suuqna waxa weeye suuqan iskuulkii loo jeeday Jaalasiyaad iyo maxay ahaydey halka gurigii shaqaalaha aaga labadaas waxaan ugu talagalay suuq in Burco ay kaga reysato sandaqadahan yar yar ee dabakaayooyinka iyo maaragtay waxaan laga sameeyay suuq hore waan sameeyay oo Sheekh Bashiir Mool
center waanu samaynay kaa imika si fiican buu socdaa dabaqii labaad ba imika la shubaya oo dantii aanu ka lahayn iyo ujeedada aanu ka lahayn waxaan isdhexgalka bulshada iyo beec musirka alxamdulillah waana noo hirgashay raggii nagala shaqeeyay beec musirkaana aad iyo aad baanu ugu mahadnaqayn suuqyada cusubna waa soo kordhinaynaa laakiin dadka wadooyinka ku ganacsanaya ee ku beec mushtareynaya iyagoo dadka yagiya oo aanu u damqanayno had iyo jeer aanan jeclayn inaan cagafuun marino waxaan jecel lahay in ay isyar maaragtay asturaano si xeega u noqoto deelkan u nabadgalaan guryihii imika loogu talagalay beec mushtarka qaar way iska xidhan imika halkan guryo badan baa xidhan hangarka naga horeeya guryihii meeshii la odhan jiray onadka ee loogu talagalay beec mushtarka guryaha reeraha ku jira inta badan ama rag iskaabulaa baa ku jira guryihii maaragtay insida bar waa nagan duminay ka dhigayna dhakhtarka weyn oo imika waa la wadaa dhakhtarka dhammaad buu ku dhow yahay mudduu socon imika sanadii dheeraad barna weli dee guryihii reeraha ku jira dhulkaas oo dhulka loogu talagalay beec mushtarka loogu talagalay waxaan rajaynaynaa reer burco inay nadag iyagoo beec mushtarkoodana wata oo aanaan doonaynin inaan khasaarayno dadka yaga haddana bilicda magaalada ay nagala shaqeeyaan ganacsatada yaryara suuqa ku ganacsata iyagu waxaa laga yaabaa inaan ogeyn xarumaha in loo sameeyey dhaqaale badan oo ay kirada iskaga bixiyaanna ma haystaan maxaa iyaga u qorshaha ayaad ugu talagashay kiradooda hoose ah waan ognahay dad badan oo laga yaabo wuxuu ku ganacsanayaaba dhowr boqol oo dollar inay tahay inaanay maaragtay awoodu lahayn inay guri weyn ay samaystaan ama guri weyn ay kiraystaan inaanay awoodu lahayn ayaga laftigooda dee waxaa jira meelo aan bilicda magaaladana waxba la odhan karo dee waxba u dhimi mayso dee iyaguna ay ku shaqaysan karaana way jiraan marka dee inay is asturaan unbaa fiicanoo dee ganacsigooda siduu ugu shaqaynayana ay aanaan iska hortaagin dee ay ku shaqaystaan dee bilicdii magaaladana aanay waxu dhimino iminka haddii dee 10 kaaryoon ama 20 kaaryoon waddo istaagan waddadaas way go-aysa marka annaguna waxaan ixtiraamaynaa dadka shaqaysanaya inaan shaqadooda ku ixtiraamno ayaguna dee ay isbasriyaanoo dee ay ogaadaan in ay iswaafajiyaan inay shaqaystaan